السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتو waxaan ka wada salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Oromada qabiilada af Soomaaliga yaqaano anigoo magacayga Caasha Xaaji Goobne. waxaan idin leeyahay dadka walaalaha horta in la iscaayo waa laga fiican yahay. dadkiina caaytamaayo u maleeya caaydu inay wax fiican tahay. caaydu waxay tahay qofka aan waxba awoodin ama wuxuu yahay aysan jirin intay soo fariistaan social media dadka caaytamo. dadka walaalahana in la iscaayo waa laga fiican yahay. dadkiina u maleynaya caayda in lagu noqdo aqoonyahan ama lagu noqdo famous laguma noqdo famous. waxa u fahanteen si xun waxyaabaha aanan jirin. dadka dhahayo Oromadu waa kobahayaga, Oromadu waa dad saas, Oromadu waxa waa qabiil culimo leh, caamo leh, aqoonyahan leh. qof aanan wax xun lahayn ma jiro. marka labada qof ee walaalaha isku hooyada isku aabaha is cuna qof kale iska daay hadii la isku dhaco lama caayid qabiil weyn inta la soo fariisto social media ama maanta ina caay Soomaali on social media u soo fariisto waa laga fiican yahay. dadkiina inta social media soo fariisataan Oromadu waa kobahayaga, Oromadu waa dadaan xamaalin jiro, Oromadu waa horta qof walba haduu xamaasho ceeb ma laha, ma hadii digsigaaga u dhaqi jira ceeb ma aha. waa qof xoogsanayo oo xoogiisa ku nool. dadka ay isu maleysiin inaad dadka ka fiicantiin ama ka maartay boqorsantiin wax ay ka boqorsantiin ma jirto. bini aadan la wada yahay, adoon ilaaha la wada yahay. hadii uu qaraar idinka hayo maanta hadii ay Oromo prime minister heshay uma maleynaynin inaad dadka qaarkood saa u hadlayaan, especially dadaan aqaanoon isu naqaano wax aan wada nahay isna u yaqaano huwaayam anaan aqaano inuu qofku yahay. inaad soo fariisataan social media aad tiraadaan Oromadu waa kobahayaga, Oromadu waa dad wasakhiin, Oromadu waa dad yaqaana bini aadanimada, dad yaqaana xiriirka, dad yaqaana xididnimada, dad yaqaana waalidnimada, dad yaqaana walaaltinimada. marka dadka sida xun u hadla ama sida xun u dhaqmo waa dadka support gareeyo dawladaha cadawga ee dadka bini aadanka gumaado. Oromo dad ma gumaado, darisna waa la aha, haddana waa la leeyahay. laba qabiil oo isku dhacay ama laba qof oo isku dhacay inta aad meel la soo fariisataan social media aad tiraadin Oromo maaha cadaygiina, waa dad idinkoo kala aan kala xishoono, aan is xishmayno, dad walaalaa la yahay, dad xididaa la yahay. maaragtay caayda dadka aad la soo fariisataan wax iskula hara. haddii aad u daba dhaqi lahaydeen dawladda Tigray waqtigeedu ugu dhamaaday ama jeclow ama dhamcow ama support garay ama ha support garaynin maanta guul iyo gobonimo Oromo meel la soo fadhido. dadna gumaadi mayso. dadka xun oo waxaleeyayna waa la idinka celinaya inaad qabiiladan banaanka la soo fariisataan oo deecdeecsataan waa laga fiican yahay dadyo. maartay aan runta isu sheegno waa isnaqaanaa. hadhiina Oromo waa karbaashi jiro, qof karbaashi kara ma laha. soomiidan garan laakiin dadkiina waxyaabaha aan micnaha lahayn meelaha la soo farfariisto wax iskula hara. who is hurting, who losing the position, who is supporting the Tigray government is a time is not anymore for Tigray, is Oromo people. haddii siday gabar ay tiri aan ka fiirsanayo social media ay lahayd Oromo ilaaha awalba noo garbaduubay dad aan iska celin karna maaha. qof qabiil ilaahay ku garbaduubay inaa ku digdigsatid waa laga fiican yahay. inaa maartay soo caaytintid oo social media soo fariisatiin rag iyo dumar saa u tihiin. miidan dad islaam ahayn, miidan u baahnayn for future inaa wax iskula hartaan. ninka Oromo meesha nagnagtiisa iyo xumaantiisa la soo fariisto Oromo gabdhihiinana way qabaan, wiilashiidana gabdhahooda ay qabaan. aan is xishoon dad waxa la yahay xidid ah aan wax iskula haro, especially qabiilka reer Gari iyo jaarsi idinka wada dego, idinka wada deegaana, idinka wada maaragtay hil iyo hooba shalay isla aha. maanta hadaa is cunteen oo isku dhacdeen odayaala la leeyahay, aqoonyahanaa la leeyahay inaad ka heshiisaan loo baahan yahay oo istiraadaan reer hebel muxuu reer hebel ka rabaa aad dib isu baartaan. maaha inaa Oromo dhan media la soo fariisataan oo tiraadin Oromo waxay rabtaa inay la harto Soomaaliya waxba kuma falayso Oromo oo walay ku nooleed iyagoonan xor ahayn ay ka xamaalanayeen ee ka soo arooseen ee ka ilmo dhaleen. maaha dadka aanan aqoonin saxanka ku cunaan ku xaaro Oromadu. dadka saxanka ka cunaan ku xaaro dib ha isu fiiriyo. Oromo waa qabiil weyn. ilaaha siiye maanta galad ilaahay guushana waxay ku heleen midnimo. ma gumaadayaan qofna. qoliyaha qoriga la ordaayo oo dhahayo Oromaana taabato waa qoliyaha
u hiilinaya tigray calankeedu wuu dhacay walaalayaal aan runta isu sheegno dad muslina la wada yahay dad xidida la yahay tigray waqtigeedu wuu dhamaaday ama jeclaada ama support gareeya hawiyay gumaadeen daarooday gumaadeen qof daarood gumaadaya male qof hawiye gumaadaya male qof qabiil intuu u qori qaato qabiil hebelaa tahay dhahaaya male iyagoo dalkoodii joogo oo guryahoodii taagan ay qaxooti ku wada noqdeen laga soo raray meel kasta ay joogeen waxaana ka soo raray kuwa tigrayda u daba dhaqa ma aha Soomaali oo dhan ma dhahayno Soomaali oo dhan asuubisay laakiin dadkiina tigrayda u daba dhaqay tigray waqtigeedu uu dhamaaday calankeedu wuu dhacay man istaagi doono hadhina shalu qabsaday dhulku wuxuu ku riday gariir kamuusan ridin Afrika oo dhan wuxuu ka riday midnimo wadamada shalay isku hanjabaayuu heshiisiyay sida xun waxba ha u fasirina haddii aad ka xuntihiin maxay u haysataa orama guusha way helaysaa wayna heli doontaa wayna haysataa ku hurud kuna soo toos maartay in badan la kala gabanaayo oo la kala xishoonayo oo la lahaa dadkan xidida leeyahay balsuga hebel iyo hebel ma soo dhacay dadka meediyaha soo fariisto ani caasha ah waa isnaqaanaa waa ku aqaana ayna maaha ceebna maaha adna waa taqaanana waa ku aqaana laakiin wax iskula hara dawladda tigreedu way dhamaatay waqtigeeda ama jeclow ama nabcow maanta orama meesha hayso oramaana xukumayso dad walaalana waa la wadayaa wax iskula hara idin dhahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii hadal uu si xun iiga dhacay oo si xun iiga fahanteen dadka qaarkood walaalayaal iga raali ahaada qof bini aadan ah leeyahay laakiin waxa maanta i soo dhigay meediyaha inaan soo fariisto by face dadka aanan waxba iskula haraynin ama aan waxba xishmo iyo xishmad darrada inta la soo fariistaan meediyaha oramadu waa qurun oramadu waa saa oramadu waa kobaha iyaga oramo maaha kobo dadeed xoolo haday tahayna way ka xoolo badan tahay aqoon haday tahayna way ka aqoon badan tahay dadnimo haday tahayna way idinka dadnimo fiican tahay dadka qaarkood ma aha Soomaali oo dhan ma dhahay hadalka haduu si xun iiga dhacay walaalayaal iga raali ahaada laakiin dadka sida xun u hadlo oo social media la soo fariisto waxay iskula haro ayadu waxay tartan ma laha kii shalay dhahay aniga waxaan ahay gobonimo doon Soomaaliyeed meesha la soo fariisanayeen oo caayiseen oo reer hebelaatay war wuxuu ma aha reer hebel waxay tahay maanta walaaltinimo wax ka fiican ma laha ara iga fiican iyo ana ka fiican waxay taraysan ma laha haddii ay wax tar lahayd wadamo badan Soomaa burbureena maanta adduun weynaha dacal iyo daafo looma fadhiyeen qaxootinimo qof walba wadankiisu joogi lahaa isagoo xor ah isagoo suura u shaqaysanayo qaxootinimona laguma ahaadeen beelaha adduun weynaha maarta walaalayaal wax iskula hara السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxa maanta i soo dhigay social media dadka iga soo xanaajiyo maalin walba caydayada gidaarada la soo fariisto ma aragtay dadkiina kale ee Soomaali weyn waxay iga mudan tihiin xishmo iyo sharaf iyo walaaltinimo walaalayaal hadii uu hadal xun iga dhacay iga raali ahaada idinkoo raali ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتو waxaan ka wada salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Oromada qabiilada af Soomaaliga yaqaano anigoo magacayga Caasha Xaaji Goobne waxaan idin leeyahay dadka walaalaha horta in la iscaayo waa laga fiican yahay dadkiina caaytamaayo u maleeya caaydu inay wax fiican tahay caaydu waxay tahay qofka aan waxba awoodin ama wuxuu yahay aysan jirin inta soo fariistaan social media dadka caaytamo dadka walaalahana in la iscaayo waa laga fiican yahay dadkiina u maleynaya caayda in lagu noqdo aqoonyahan ama lagu noqdo famous laguma noqdo famous waxa u fahanteen si xun waxyaabaha aanan jirin dadka dhahayo oramadu waa kobaha iyaga oramadu waa dad saas oramadu waxa waa qabiil culimo leh caamo leh aqoonyahan leh qof aanan wax xun lahayn ma jiro marka labada qof ee walaalaha isku hooyada isku aabaha is cuna qof kale iska daay hadii la isku dhaco lama caayid qabiil weyn inta la soo fariisto social media ama maanta ina caay Soomaali on social media u soo fariisto waa laga fiican yahay dadkiina inta social media ha soo fariisataan oramadu waa kobaha iyaga oramadu waa dadaan xamaalin jiro oramadu waa horta qof walba haduu xamaasho ceeb ma laha ama hadii digsigaaga uu dhaqi jiro ceeb ma aha waa qof xoogsanayo oo xoogiisa ku nool
dadka ay isu malaysiin inaad dadka ka fiicantiin ama ka maartay boqorsantiin wax ay ka boqorsantiin ma jirto bini aadana la wada yahay adoon ilaaha la wada yahay hadii uu qaraar idinka hayo maanta hadii ay ormo prime minister heshay uma malaynaynin inaad dadka qaarkood saa u hadlayaan especially dadaan aqaano isu naqaano wax aan wadanahay isna u yaqaano huwaayam anaan aqaano inuu qofku yahay ina soo fariisataan social media aad tiraadaan oromadu waa kobahayaga oromadu waa dad wasaqin oromadu waa dad yaqaan bini aadanimada dad yaqaan xiriirka dad yaqaan xididnimada dad yaqaan waalidnimada dad yaqaan walaaltinimada marka dadka sida xun u hadlaama sida xun u dhaqmo waa dadka support gareeyo dawladaha cadawga ee dadka bini aadanka gumaado oromo dad ma gumaado darisna waa la aha hadana waa la leeyahay laba qabiil oo isku dhacay ama laba qof oo isku dhacay inta aad meel la soo fariisataan social media aad tiraadin oromo maaha cadaygiina waa dad idinka kala aan kala xishoono aan isxishmayno dad walaalaa la yahay dad xididaa la yahay maaragtay caayada dadka aad la soo fariisataan wax iskula hara haddii aad u daba dhaqi lahaydeen dawladda Tigray waqtigeedu ugu dhamaaday ama jeclow ama dhamcow ama support garay ama ha support garaynin maanta guul iyo gobonimo Oromo meel la soo fadhido dadna gumaadi mayso dadka xuna waxa leeyayna waa la idinka celinaya inaad qabiiladan banaanka la soo fariisataan oo deecdeecsataan waa laga fiican yahay dadyo maarta aan runta isu sheegno waa isnaqaana hadhiina Oromo waa karbaashi jiro qof karbaashi kara malaha soomiidan garan laakiin dadkiina waxyaabaha aan micnaha lahayn meelaha la soo farfariisto wax iskula hara who is hurting who losing the position who is supporting the Tigray government is a time is not anymore for Tigray is Oromo people haddii siday gabar ay tiri aan ka fiirsanayo social media ay lahayd Oromo ilaaha awalba noo garbaduubay dad aan iska celin karno maaha qof qabiil ilaahay ku garbaduubay inaa ku digdigsatid waa laga fiican yahay inaa maartay soo caytintid oo social media soo fariisatiin rag iyo dumar saa u tihiin miidan dad islaam ahayn miidan u baahnayn for future inaa wax iskula hartaan ninka Oromo meesha nagnagtiisa iyo xumaantiisa la soo fariisto Oromo gabdhihiinana way qabaan wiilashiidana gabdhahooda ay qabaan aan isxishoon dad waxa la yahay xidid ah aan wax iskula haro especially qabiilka reer gari iyo jaarsi idinka wada dego idinka wada deegaana idinka wada ma aragtay hil iyo hooba shalay isla aha maanta hadaa is cunteen oo isku dhacdeen odayaala la leeyahay aqoon-yahanaa la leeyahay inaad ka heshiisaan loo baahan yahay oo istiraadaan reer hebel muxuu reer hebel ka rabaa aad dib isu baartaan maaha ina Oromo dhan media la soo fariisataan oo tiraadin Oromo waxay rabtaa inay la harto Soomaaliya waxba kuma falayso Oromo oo walay ku nooleed iyagoonan xor ahayn ay ka xamaalanayeen ee ka soo arooseen ee ka ilmo dhaleen maaha dadka aanan aqoonin saxanka ku cunaan ku Oromadu dadka saxanka ka cunaan ku xaaro dib ha isu fiiriyo Oromo waa qabiil weyn ilaaha siiye maanta galad ilaahay guushana waxay ku heleen midnimo ma gumaadayaan qofna qoliyaha qoriga la ordaayo oo dhahayo Oromaana taabato waa qoliyaha u hiilinaya Tigray calankeedu wuu dhacay walaalayaal aan runta isu sheegno dad muslimiin la wada yahay dad xidida la yahay Tigray waqtigeedu wuu dhamaaday ama jeclaada ama support gareeya hawiyay gumaadeen daarooday gumaadeen qof daarood gumaadaya male qof hawiye gumaadaya male qof qabiil intuu u qori qaato qabiil hebelaa tahay dhahaaya male iyagoo dalkoodii joogo oo guryahoodii taagan ee qaxooti ku wada noqdeen laga soo raray meel kasta ay joogeen waxaana ka soo raray kuwa Tigrayda u daba dhaqa ma aha Soomaaliya oo dhan ma dhahayno Soomaaliya oo dhan asuubisay laakiin dadkiina Tigrayda u daba dhaqay Tigray waqtigeedu uu dhamaaday calankeedu wuu dhacay man istaagi doono hadhina shalu qabsaday uu dhulku wuxuu ku riday gariir kamuusan ridin Afrika oo dhan wuxuu ka riday midnimo wadamada shalay isku hanjabayo heshiisiyay sida xun waxba ha u fasirina hadii aad ka xuntihiin maxay u haysataa Oromo guusha way helaysaa wayna heli doontaa wayna haysataa ku hurud kuna soo toos maartay in badan la kala gabanayo oo la kala xishoonayo oo la lahaa dadkan xidida leeyahay balsuga hebel iyo hebel ma soo dhacay dadka media soo fariisto ani caasha ah waa isnaqaana
واكو أقانا عينا ماها عيبنا ماها أدنا واي تقانا واكو أقانا لكن wax iskula hara dowladda Tigreed way dhamaatay waqtigeeda ama jeclow ama nabcow maanta orama meesha hayso orama xukumayso dad walaalana waa la wadaya wax iskula hara idin dhahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadii hadal uu si xun iiga dhacay oo si xun iiga fahanteen dadka qaarkood walaalayaal iga raali ahaada qof bini aadan ah leeyahay laakiin waxa maanta i soo dhigay meediyaha inaan soo fariisto by face dadka aanan waxba iskula hareynin ama aan waxba xishmo iyo xishmad darrada inta la soo fariistaan meediyaha oramadu waa qurun oramadu waa saa oramadu waa kobaha iyaga oramo maaha kobo dadeed xoolaha haday tahayna way ka xoolo badan tahay aqoon haday tahayna way ka aqoon badan tahay dadnimo haday tahayna way idinka dadnimo fiican tahay dadka qaarkood ma aha Soomaali oo dhan ma dhahay hadalka haduu si xun iiga dhacay walaalayaal iga raali ahaada laakiin dadka sida xun u hadlo oo social media la soo fariisto waxa iskula haro ayadu waxay tartan ma laha kii shalay dhahay aniga waxaan ahay gobonimo doon Soomaaliyeed aad meesha la soo fariisanaysiino caayiseen reer hebelaatay war wuxuu ma aha reer hebel waxay tahay maanta walaaltinimo wax ka fiican ma laha ara iga fiican iyo ana ka fiican waxay taraysan ma laha hadii ay wax tar lahayd wadamo badan Soomaali burbureena maanta adduun weynaha dacal iyo daafo looma fadhiyeen qaxootinimo qof walba wadankiisu joogi lahaa isagoo xor ah isagoo suura u shaqaysanayo qaxootinimona lagu ma ahaadeen beelaha adduun weynaha ma aragtay walaalayaal wax iskula hara السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمانت يصور لك السوشيال ميديا هادتك يقصوا حناجي ومعلم والبعايدة يدد جدار هذا اللي صوفريستو ما عرفت ددكي نكلا سومالي ويني وحايقا مدنتهين حشمة إيا الشرف إيا والالتنمو walaalyaal hadii uu hadal xun iga dhacay iga raali ahaada idinkoo raali ah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتو waxaan ka wada salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Oromada qabiilada af Soomaaliga yaqaano anigoo magacayga Caasha Xaaji Goobne waxaan idin leeyahay dadka walaalaha horta in la iscaayo waa laga fiican yahay dadkiina caaytamaayo u maleeya caaydu inay wax fiican tahay caaydu waxay taa qofka aan waxba awoodin ama wuxuu yahay aysan jirin inta soo fariistaan social media dadka caaytamo dadka walaalahana in la iscaayo waa laga fiican yahay dadkiina u maleynaya caayda in lagu noqdo aqoonyahan ama lagu noqdo famous laguma noqdo famous waxa u fahanteen si xun waxyaabaha aanan jirin dadka dhahayo Oromadu waa kobahayaga Oromadu waa dad saas Oromadu waxa waa qabiil culimo leh caamo leh aqoonyahan leh qof aanan wax xun lahayn ma jiro marka labada qof ee walaalaha isku hooyada isku aabaha is cuna qof kale iska daay hadii la isku dhaco lama caayid qabiil weyn inta la soo fariisto social media ama maanta ina caay Soomaali on social media u soo fariisto waa laga fiican yahay dadkiina inta social media ha soo fariisataan Oromadu waa kobahayaga Oromadu waa dadaan xamaalin jiro Oromadu waa horta qof walba haduu xamaasho ceeb malaha hadii digsigaaga uu dhaqi jiro ceeb ma aha waa qof xoogsanayo oo xoogiisa ku nool dadka ay isu malaysiin inaad dadka ka fiicantiin ama ka maartay boqorsantiin wax ay ka boqorsantiin ma jirto bini aadan la wada yahay adoon ilaaha la wada yahay hadii uu qaraar idinka hayo maanta hadii ay Oromo prime minister heshay uma malaynaynin in dadka qaarkood saa u hadlayaan especially dadaan aqaano oo isu naqaano wax aan wadanahay isna u yaqaan huwaayam anaan aqaano inuu qofku yahay ina soo fariisataan social media atraadaan Oromadu waa kobahayaga Oromadu waa dad wasaqin Oromadu waa dad yaqaan bini aadanimada dad yaqaan xiriirka dad yaqaan xididnimada dad yaqaan waalidnimada dad yaqaan walaaltinimada marka dadka sida xun u hadlaama sida xun u dhaqmo waa dadka support gareeyo dawladaha cadawga ee dadka bini aadanka gumaado Oromo dad ma gumaado darisna waa la aha hadana waa la leeyahay laba qabiil oo isku dhacay ama laba qof oo isku dhacay inta aad meel la soo fariisataan social media aad raadin Oromo maaha cadaygiina waa dad idinkoo kala aan kala xishoono aan is xishmayno dad walaala la yahay dad xidida la yahay maarta caayda dadka ala soo fariisataan wax iskula hara hadii aad u daba dhaqi lahaydeen dawladda Tigray waqtigeedu ugu dhamaaday ama jeclow ama dhamcow ama support garay ama ha support garaynin maanta guul iyo gobonimo Oromo meel la soo fadhido
dadna gumaadi mayso dadka xunoo waxaleeyayna waa laydinka celinaya inaad qabiiladan banaanka la soo fariisataan oo deecdeecsataan waa laga fiican yahay dadyo maartay aan runta isu sheegno waa isnaqaanaa hadhina orama waa karbaashi jiro qof karbaashi kara ma laha soo miidan garan laakiin dadkiina waxyaabaha aan micnaha lahayn meelaha la soo farfariisto wax iskula hara who is hurting, who losing the position, who is supporting the Tigray government is a time is not anymore for Tigray, it's Oromo people. Hadduu siday gabar ay tiri aan ka fiirsanayo social media ay lahayd Oromo ilaaha awal banoo garbaduubay dad aan iska celin karna maaha qof qabiil ilaahay ku garbaduubay inaa ku digdigsatid waa laga fiican yahay inaa maartay soo caytintid oo social media soo fariisatiin rag iyo dumar saa u tihiin miidan dad islaam ahayn miidan u baahnayn for future inaa wax iskula hartaan ninka Oromo meesha nagnagtiisa iyo xumaantiisa la soo fariisto Oromo gabdhihiinana way qabaan wiilashiidana gabdhahooda ay qabaan aan isxishoon dad waxa la yahay xidid ah aan wax iskula haro especially qabiilka reer gari iyo jaarsi idinka wada deegaana idinka wada ma aragtay hil iyo hooba shalay isla aha maanta hadaa is cunteen oo isku dhacdeen odayaala la leeyahay aqoon-yahanaa la leeyahay inaad ka heshiisaan loo baahan yahay oo istiraadaan reer hebel muxuu reer hebel ka rabaa dib isu baartaan maaha ina Oromo dhan media la soo fariisataan oo tiraadin Oromo waxay rabtaa inay la harto Soomaaliya waxba kuma falayso Oromo oo walay ku nooleed iyagoonan xor ahayn ay ka xamaalanayeen ee ka soo arooseen ee ka ilmo dhaleen maaha dadka aanan aqoonin saxanka ku cunaan ku Oromadu dadka saxanka ka cunaan ku xaaro dib ha isu fiiriyo Oromo waa qabiil weyn ilaaha siiyay maanta galad ilaahay guushana waxay ku heleen midnimo ma gumaadayaan qofna qoliyaha qoriga la ordaayo oo dhahayo Oromaana taabatay waa qoliyaha u hiilinaya Tigray calankeedu wuu dhacay walaalayaal aan runta isu sheegno dad muslimiin la wada yahay dad xidida la yahay Tigray waqtigeedu wuu dhamaaday ama jeclaada ama support gareeya hawiyay gumaadeen daarooday gumaadeen qof daarood gumaadaya male qof hawiye gumaadaya male qof qabiil intuu u qori qaato qabiil hebelaa tahay dhahaaya male iyadoo dalkoodii joogo oo guryahoodii taagan ay qaxooti ku wada noqdeen laga soo raray meel kasta ay joogeen waxaana ka soo raray kuwa Tigrayda u daba dhaqa ma aha Soomaaliya oo dhan ma dhahayno Soomaaliya oo dhan asuubisay laakiin dadkiina Tigrayda u daba dhaqay Tigray waqtigeedu uu dhamaaday calankeedu wuu dhacay man istaagi doono hadhina shalu qabsaday uu dhulku wuxuu ku riday gariir kamuusan ridin Afrika oo dhan wuxuu ka riday midnimo wadamada shalay isku hanjabayo heshiisiyay sida xun waxba ha u fasirina hadii aad ka xuntihiin maxay u haysataa Oromo guusha way helaysaa wayna heli doontaa wayna haysataa ku hurud kuna soo toos maartay in badan la kala gabanayo oo la kala xishoonayo oo la lahaa dadkan xidida la yahay balsuga hebel iyo hebel ma soo dhacay dadka media soo fariisto ana caasha ah waa isnaqaana waa ku aqaana ayna maaha ceebna maaha adna waa taqaana waa ku aqaana laakiin wax iskula hara dawladda Tigreedu way dhamaatay waqtigeeda ama jeclow ama nabcow maanta Oromo meesha hayso Oromo aan xukumayso dad walaalana waa la wadayaa wax iskula hara idin dhahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadii hadal uu si xun iiga dhacay oo si xun iiga fahanteen dadka qaarkood walaalayaal iga raali ahaada qof bini aadan la yahay laakiin waxa maanta i soo dhigay media inaan soo fariisto by face dadka aanan waxba iskula hareynin ama aan waxba xishmad darrada inta la soo fariistaan media Oromadu waa qurun Oromadu waa saa Oromadu waa kobaha iyaga Oromo maaha kobadadeed xoolaha haday tahayna way ka xoolo badan tahay aqoon haday tahayna way ka aqoon badan tahay dadnimo haday tahayna way idinka dadnimo fiican tahay dadka qaarkood ma aha Soomaali oo dhan ma dhahay hadalka haduu si xun iiga dhacay walaalayaal iga raali ahaada laakiin dadka sida xun u hadlo oo social media la soo fariisto waxa iskula haro ayadu waxay tartan ma laha kii shalay dhahay aniga waxaan ahay gobonimo doon Soomaaliyeed meesha la soo fariisanayeen oo caayiseen oo reer hebelaatay war wuxuu ma aha reer hebel waxay tahay maanta walaaltinimo wax ka fiican ma laha ara iga fiican iyo ana ka fiican waxay taraysan ma laha hadii ay wax tar lahayd wadamo badan Soomaaliya burbureen maanta
adduun weynaha dacal iyo daafo looma fadhiyeen qaxootinimo qof walba wadankiisu joogi lahaa isagoo xor ah isagoo suura u shaqaysanayo qaxootinimona laguma ahaadeen beelaha adduun weynaha ma aragtay walaalayaal wax iskula hara salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa maanta isoo dhiga social media dadka iga soo xanaajiyo maalin walba caydayada gidaarada la soo fariisto ma aragtay dadkiina kale ee Soomaali weyne waxay iga mudan tihiin xishmo iyo sharaf iyo walaaltinimo walaalayaal haddii uu hadal xun iga dhacay iga raali ahaada idinkoo raali ah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu